haddii aadan dulmi la ahayn ilaahay baa ku hiilinaya, ciidaa ku hiilinaysa, waqtigaa ku hiilinaya, deegaankaa ku hiilinaya, guriga aad degantaa ku hiilinaya, waxa ku hiilinaya dad aadan aqoon, ummad aadan garanayn baa ku hiilinaya. Waa haddaadan dulmi geysan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بني سلام يا ملك السؤال جوكتاني سكستو هذه مغلسان بوحد لي السؤال هذا صاحب بيان وأيضا كورونا لو جرى قريها لقى مبحو تيمو ترام فر المجرو ميلو حلقة سوق بصني هي مجرته. اللهم نجنا من النار يا ما ترى برامج كان أسلي آدي بمهم وياي برامج كاس وحنا روندونا كرسوني ذا هي فرحات سين نفط هذا أنا فرحات سيسيد أو كرسوني سيسيد ووح آدي مهمة. barnaamijkan si aad mataqaana uga bogatid waxaan kaa codsanayaa inaad like garayso barnaamijka, share garayso, haddii aad nagu cusubtanahay subscribe ku qabato oo maasan tahay aad oo maasanta waa la garayso ma barnaamijkan aad oo maasantiin. barnaamijkaas like tirada badan waxay naga saacidaysaa inuu dad badan gaaro. aad iyo aad baan kaaga mahad celinayaa sida aad u dhibtay iyo waqtigaaga qaaliga ah waan kaaga mahad celinayaa. waayahay qof walba waxa muhiim u ah naftiisa. haddii aad naftaada muhiimadda aadan siin waa adkaanaysaa in aad heer ka gaadho nolosha. qodobo muhiima idiin soo koobay sidaad iga barateenba. barnaamijkan aan qodobaynayo oo nolosha ku salaysan wuxuu noqon doonaa mid joogto ah. fadlan waxaan kaa codsanayaa haddii aad nagu cusub tahay noo subscribe garee. qodobka ugu horreeya aan raba inaan soo qabto maanta, marna yaysan ku saamayn hadallada adag ama laqwiga ah dadka kugu xiran hadalladooda marna yaysan ku saamayn. haddii aad maanta ka fakaraysid oo is leedahay hebel baa wax iga sheegay kana saan yiri kana hadalka iga soo jeediyay ereygi uu isagu yiri baan ka xumaaday, waxa uu hadalka qofka agtaada ka yiraahdo hadduu saameyn kugu yeesho waxaa noqonaysaa qof yacni damage maskaxdiisa ay gaarto. si sidaa looga hormaro iska dhaga tir inuu hadlaha ka soo qaadin, waxaa ka soo qaada waxba kama jiraan oo ti guulaysanaysaa. weligaa waxay dadku yiraahdeen ha isku mashquulin, waayo qofka wax la leeyahay waxaa tahay haddii wax lagu yiraahdo waxaa tahay qof nool. marka qiimay kuu samaynaysa qof inuu wax kaa sheego, adiga qiimo kuu samaynaysaa. haddii maanta wax lagaa sheego adiga ayay faa'iido kuu tahay, waayo waxaa tahay qof nool oo saamayn leh. haddaad saamayn leedahay waxbaa lagaa sheegayaa yes. marka u diyaargarow yaysan ku saamayn negativeka dadka negativityga ummadda yaysan ku saamayn weligaa. waayahay si naftaada aad farxad u gelisid waa inaad hadaf yeelataa. hadafka noloshu waa wax muhiim ah. haddii aad hadaf ka leedahay nolosha way kuu fududaanaysaa guul walba oo gaartid. ka soo qaad maanta waxaad go'aansatay in aad intaarkan ka tagtid aad bannaanka u baxdid oo kale, waa hadaf aad gaartay. ka soo qaad hadda maanta waxbaad inaad wax barataa rabtaa, waxbarashadaada waad bilaabaysaa ilaa dhammaadkeeda sanadkaas. haddii mataqaanaa aad ku gaartid waa hadaf aad gaartid. marka waqti kasta oo cayiman oo aad naftaada u qabatid waa hadaf iyo gool oo aad naftaada la gaartid. hadaf waxaa la yidhaahdaa wax meel ka bilowday oo kor u socday ilaa meesha aarta ay gaaraan oo pointi ama gool leh baa la yidhahdaa hadaf. marka mar walba waa inaad noloshaada iyo naftaaduba ay ahaadaan kuwo gool leh oo hadaf leh oo aan hakasho lahayn. weligaana ha ka hakan hadafkaaga. qodobkan aad buu muhiim u yahay. ku kalsoonow shakhsiyadaada adigu ku kalsoonow. marka aad isku kalsoon tahay oo aad tahay hebel ama heblaayo hebel, haddana aad og tahay kartida iyo baawarka iyo quwadda ilaahay kugu abuuray ee kugu jirta oo aad ku kalsoonaato waxaad noqonaysaa qof guul gaara. laakiin haddii aadan naftaada ku kalsoonayn waxaad noqonaysaa wax aan jirin. marka mar walba waa inaad ku fakartaa in aad noqotid qof ku kalsoon naftiisa oo awoodiisa isticmaalaya oo jabal kasta ama mataqaana awoodo kastoo ka xoog badan ka hor yimaadaba aan ka hakanayna jiiri kara inaan noqosti waay. qodobkan aad buu muhiim u yahay nolosha. qofna ha dulmin inta aad nooshahay. iska ilaali dulmiga haddaa iska ilaalisid waxaa kuu fududaanaysaa mowqifkaagii, hadafkaagii iyo farxaddaadii inay ku guulaystaan. waayo qofka dulmilowga ah guul ma gaaro. haddii aadan dulmilo ahayn ilaahay baa ku hiilinaya, ciidaa ku hiilinaysa, waqtigaa ku hiilinaya,
deegaanka kuu hiilinaya, guriga aad degantaa kuu hiilinaya, waxa kuu hiilinaya dad aadan aqoon, ummad aadan garanayn baa kuu hiilinaya. waa haddaadan dulmi geysan. waa xaqiiq, wallahi waa xaqiiq. iska ilaali dulmiga. dulmigu waa wax xun, in la iska ilaalisana waa wax wanaagsan. laakiin haddaad dulmiilow tahay, dulmigaagiiba intuu dhaqaaqo adiga cagaha ku dabrayaa, adigiiba ku dabrayaa, cagaha kaa xiraya, guushii kaa xiraya, farxaddii kaa xiraya, stress kugu ridaya, ilaa aad mataqaanaa waxa maskaxiyan aad u xanuunsatid. qodobkan aad buu muhiim u yahay, weli anigu waan isticmaalaa runtii. qodobkani waxaa la yidhaahdaa cafis badi. weligaa cafi qof walba, cafiska badi, qof walba cafi. waxaa ku tidhaahdaa cafi alihi masaabax, cafi alihi masaabax, cafi alihi masaabax. run ahaantii cafiska tirada badan waxa weeye diintana waa lagu sheegay, aad iyo aad iyo aad buu muhiim u yahay. mar kastana waxaa laga rabaa inaad noqotid qof wax cafiya, si adigana lagu cafiyo. si ilaahay ku cafiyo waa ina adiguna wax cafisaa. cafisku wax aad iyo aad muhiim u ah. qodobkan aniga khadar ah baan isticmaala runtii, waana mid ka mid ah sirahayga nolosha. waqti siinta naftayda. aniga naftayda waxaan u wada hadalaa sidii laba qof oo kale. naf yahay, maxaad qabatay maanta? haye waan is hor fariisanaa, waxaan labadeen unbaa sheekaysanana. waa isla sheekaysana, waxay dhahaa maanta maxaa ku hagaagi, maxaa qabatay, beri maxaa ku hagaagi doona, maxaad damacsan tahay, maxaad dareemaysaa. naftaada waqti sii, soo qurxi, soo dhaq, usoo kareemi iyo la sheekayso. naftaada jeclow, yes, oo waqti sii. inaad jeclaatid naftaada oo aad waqti siisid waxay muhiim u tahay noloshaada iyo guushaada iyo farxadaada. banaanka u kaxee, meelo qurux badan gee, jawi degan gee, meel biyo ka daadanayaan gee, meel dad ku yaryaha gee. ama maalin waxbaa sameyn. anu waxaan sameeya nafsadayda maalin ii gaaraaba jirta. maalinta ii gaarka xataa saaxiibada telefonka ma qabto. aniga iyo nafteeda waqti isla qaadan. marka weligaa naftaada waqti sii. waxaan ula sheekaystaa sidii qof saaxiibkaay oo kale. nafyahay maxaa kaga daa, waxaas kuma fiicna, waxaas kuma qalmaan, iska daa, sidaad ku socota si wanaagsan maaha, sidaas kasii fiican samee. isla shuraakooba. ma aha inaad qof waalan tahay, laakiin waxaad waqti siinaysaa naftaada. aad bayna muhiim u tahay. waana qodob aad iyo aad aan guulo badan ugu gaaray horta markaan ka hadlo. waana qodob aan jeclahay oo aan isticmaalo. qofkii garanaya, qofkii isticmaala wuu ifahmayaa. laftaada oo la sheegay sida laba qof wada sheekaystaan aad buu muhiim u yahay. qodobkan aad iyo aad buu muhiim u yahay. mar kasta oo aad culays dareento ama aad dhibaato dareento, awalba adigoo tukanaya salaadaada caadiga ah, 2 ragcadood oo gaara tuko. ilaahay bari. waxaad tidhahdaa ilaah subxaana watacaala culays baan dareemaya, iga dulqaad. waxaa la yidhaahdaa salaatu istiqaaro. in badan bayna igu dhacday aniga. culaysa tiro badan aan dareemay marka aan salaad ii gaara 2 ragcadood oo ii gaara salaad istiqaaro aan tukaday. aad iyo aad iyo aad bay igu fududaadeen wax. marka adoo salaadaad caadiga tukanaya, xilliga haddii culays aad dareentay isla markaasba weesayso, haddii xataa xilli salaada aysan ahayn, soo weesayso, isdiyaari, 2 ragcadood oo niyo aad tuko. wixii aad niyadda ku haysayna qalbiga ku qabso, kadibna ilaahay u dhiibo, asaga talada sii. waxaad tidhahdaa ilaahay oo adaan talada ku dhiibay arrinta noocaasa, ilahu iga fududay. ilaahay uu kaa fiidayaa culayska iyo dhibka. marka culays dareentid 2 ragcadood oo gaar ah tuko. aad bay muhiim u tahay. waayahay, qodobkan waxaan maraynayaa inaad kulligiin wada garanaysaan. ka dheerow dadka negativity-ga ah ama dadka mataqaanaa warxusheega ah. dadka negative-ka ah ka dheerow, ka fogow. dadka aan hadalka wanaagsaneyn ka fogow. dadka macangaga ka fogow. dadka fikirka aan lahayn ka fogow. dadka nolosha ka dhacay ka fogow. dadka aan maskax horumarsan lahayn ka fogow. dadka aan waxbaran ka fogow. dadka aan xigmad lahayn ka fogow. qof kasta oo liita ka fogow, si aad noloshaada farxad iyo guul u siisid. qodobkan waxaan malaynayaa waa ku hore ugu soo sheegnay, jeclow naftaada. wuxuu la mid noqonayaa qodobkii ahaa naftaada waqti sii. naftaada oo aad jeclaatid oo ayada aad jacayl u qaatid, waxay qiimo u yeelaysaa adiga shakhsiyadaada iyo qofnimadaada. naftaada markaad jeclaatid, u naashnaashtid, u kareemisid, timaha u hagaajisid, tustid inaad jeceshahay, dadkana waa ka dhex muuqanaysaa, qurux baad noqonaysa ma. jacaylka naftaada waxay aad iyo aad u sahashaa qofka jiritaankiisa. marka naftaada jeclow. ku dheeraanmaya qodobkaas wayna wada ognahayn u malaynayaa. intiina aan ogeyna naftaada aad jeclaataa waa muhiim. si aad farxad iyo guul u heshid, qof kasta siduu kuu tixgeliyo u tixgeli. qof kasta asagu siduu kuu tixgeliyo ama uu kuu farxad geliyo u farxad geli. siduu kuu tixgeliyo u tixgeli. siduu dhibaatada kaaga ilaaliyo
uga ilaali siduu kaaga fikaro uga fikir sida uu kuu xushmeeyaan u xushmee qof kasta mustawaha uu ku gaarsiiyo ama inta heerka aa kala egtahay uu gaarsiiyo adigana gaarsiiye qofna ha uga badin qofna ha uga yareen qof kasta wuxuu ka istaahila sii waayo dad badan oo aan dhaafsiinay wixii aan ugu talagalnay ama adiga laftigaaga dad badan oo aad wanaag tiro badan u samaysay oo waxaad arkaysa aan u qalmin intii aad siisay sidaasi la mid ah qof walba heerka uu isagu isgaarsiiyo gaarsii hadduu wanaag kugula socdo wanaag kula socdo hadduu mataqaanaa ku xiriiriyo mamar qaar uusan kusoo xiriirin ha xiriirin hadduu mataqaanaa jacayl uusan kuusoo bandhigin aadna ha u bandhigin haddii adiga aad u jeclaata isna aad ku jeclaada si inta ku jeclaysa ku jeclaada jeclow waayo qofkan hooyadaa ma dhalin waxa weye wuxuu yahay waad garanaysa marka adigo aan selfishnimo samaynayn haddana qof walba mustawaha uu joogo ha dhaafin qodobkaas waa qodob secret ah oo aan idiin sheegayo oo wax badan guul lagu gaaro tusaale ahaan gabarba waxaa arkaysaa ama wiilba waxaa arkaysaa wuxuu leeyahay waan jeclaaday heblaayo ama gabar waxay leedahay hebel waan jeclahay ima soo jeedo naftayda aan huray waan ka daba orday qofkan aad jeclaanaysid khasab waxaa ah hadduu ku noco horta qof kaa taga laguma laabto marba hadduu qof kaa tago laguma laabto sidaa darteed qof aan heer wanaagsan oo jacayla ku siin oo aan ku daryeelin oo aan ku qiimayn in aad waqtigaaga ka dabalumisid oo aad waqtigaaga ku khasaarisid xaq uma lihid sidaa darteed qof walba heerka uu ku tixgeliyo ama jacayl ha ahaato ama saaxiibtinimo ha ahaato qaab uu ku hirgeliyo ama uu ku jeclaado ama uu ku tixgeliyo u tixgeli ka badan ha siin hana uga badan hana uga yarayn laakiin waa qodob aad iyo aad u muhiima runta maraan ka hadlo waxaan jeclahay heerkaas haddii la isla gaaro oo adiga qof naftaada aa u dullaysid waxaad noqonaysaa qof noloshii ka dhacay noloshaaduna farxad ma helayso hadhow naftaada dembi baa ka galaysaa asxaab tira badan baa ila soo xiriirta oo iga yidhaahda hebel baan saas samaynaya hebel baan jeclahay dhibkaasaan darti u marayaa iimana oga dee qof aan ku ogeyn waaye adi mudoqon baa taha qof aan ku ogeyn sidee waxa weye waqtigaaga u dhumaysa waqtigaaga qaaligaa sidee u siinaysaa waqtigaaga quruxda badan sidee u siinaysaa adiga waqtigaaga adoo ku qiimaysan yahay had daqiiqadii ku dhaafta qiimay kugu fadhidaa marka qof aan sidaa kuu tixgelinayn aadna ha tixgelin weligaa ha isku day inaad qof qanacsid bini aadan inaad qanacsid ha isku wareerin hana isku waalin haddaad tiraahda bini aadan maan qancinayaa waxay kugu qaadanaysaa waqti tira badan qofnana ma qancinaysid bini aadan ilaahay unbaa qancin kara adigu ma qancin karin bini aadan qancintiisa ha isku mashquulin maalintay qancayaan waa maalinta ciidda lagu aaso marka waxyaalaha farxaad darrada keenta waxa waaye hebel muxuu saas iga aaminsan yahay muxuu saas uu leeyahay waxaas ma samayn wallaahi ma samayn mooday maxay ay sheeganaysaa maxaa been iga sheegaysaa aniga waxa ma samayn tusaale u keenaysaa tusaale kale u keenaysaa mar walba wuxuu leeyahay waa fiction waaye waxba kama jiraan waa waxaad meel ka keentay adiga dadaalayay rafaadka u marayay ma oga ku leeyahay meel kale adna kula aadaya ku leeyahay ka soo qaad anigu may barnaamijkan horan u daawaday waxba kama jira hadda weligii mu arag marka weligaa ha isku dayin in aad qof qancisid hana ku mashquulin waqtina isaga dhumin intaa haddaa samaysid weligaa waa guulaysanaysa waxaan u malaynayaa qodobadaas oo dhan way idin dhaceen idinkuna waxa weeye aad baa ugu mahadsantay daawashadiina barnaamijka sii sheer gareeya sii like gareeya wixii aad mataqaanaa aad ku dari lahayna comment sectionka nagula wadaag barnaamijka maanta ka hadlayna wuxuu ahaa farxadda iyo kalsoonida mar walba aynu ku noolaano farxad kalsooni iyo jacayl aad baa idin salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu